haddii aad tahay arday ku cusub ama ku guda jira barashada xirfadaha cyber security-ga fadlan muuqaalkan adigu kugu socdaa daawo ilaa dhamaadka. mahadsanid. ma ogtahay koorsooyinka cyber security-ga iyo diblomooyinka lagu barto cyber security-ga waxay kuu diyaarinayaan inaad ka gudubtid examka oo aad qaadatid shahaado cadeynaysa in aad baratay xirfadda cyber security-ga. laakiin koorsooyinkaas iyo diblomooyinkaas kuma siin karaan reality-ga dhabta ah ee ka jira goobaha shaqada ee ay ka shaqeeyaan xirfadleyda cyber security-ga. koorsooyinka waxay ku bari doonaan konseptiyada cyber security-ga, qaybaha uu kala baxo, toolska la isticmaalo, terminologieska iyo erey bixinada sida maxaa la dhahaa cyber security, techniqueska hacking loo isticmaalo, malware muxuu yahay, maxaa vulnerability la dhahaa, maxaa threat la dhahaa, iyo waxyaabo badan oo muhiim ah. dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa muhiim, laakiin ma ahan mid dhammaystiran. intaas kuguma filna. hadaba muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo waxyaabaha aad koorsooyinka ku arki doonin laakiin ka jira reality-ga goobaha shaqada aad u baahan tahay inaad ogaatid. koorsooyinka inta badan waxaa lagu sheegaa faham guud, laakiin waxyaabaha aad ku arki doonin waxaa ka mid ah marka ugu horeyso aad timaadid goob shaqo looga shaqeeyo cyber security-ga, waxyaabaha aad la kulmaysid waxaa ugu waaweyn. shaqadaada waxay u badnaan doontaa wax loo yaqaano taxliilin ama review. waqtigaaga ugu badan waxaa ku bixin doontaa wax loo yaqaano dib u eegis iyo taxliilin. waxaad taxliilin doontaa arrimaha la xiriiro security-ga ama security events. waqtiga ugu badan wuxuu kaaga bixi doonaa in aad sameysid wax la dhaho baaritaan. waxaa qaadan doontaa long shifts, xilli badan ama waqti badanna shaqeyn doontaa. haddii aad tahay security operation center qof ka shaqeeya ama SOC analysis ma ugu sii jirto oo waxaad investigation ku sameyn doontaa oo baaritaan dheer ku sameyn doontaa logiska aad baari doontidna qaybo badan oo kamid ah waxay noqon doonaan false positive oo muuqaalada soo socdo ayaan ku faahfaahin doonaa hadduu ilaahay idmo. waxyaabaha aad waqti u gelin doonto waxaa kamid ah report inaad qortid. run ahaantii xirfadda ugu muhiimsan oo aad maanta inaad baratid ay daruuri tahay waxaa kow ka ah report writing. waxaa u baahnaan doontaa inaad qortid clear report la fahmi karo. waqtigaaga ugu badan waxaad ku qaadan doontaa in aad sameysid wax loo yaqaano go-aan qaadasho adag. maxaa yeelay taxliilinta aad sameynaysid, security eventska aad baaraysid, ha noqoto inaad log review sameynaysid, ha noqoto arrin la xiriirto security eventska organizationka u shaqeynaysid, ha noqoto tusaale ahaan waxaa waqti badan gelin doontaa in aad hormariso qaab dhismeedka ama infrastructure-ka organizationka u shaqeynaysid, ama waxaad sameyn doontaa inaad sameysid gap analysis oo ah haddii gap uu jiro sida loo dhammaystiri lahaa. mar walbo waxaad taxliilin ku sameyn doontaa either gap jiro in aad buuxisid ama positionka la taagan yahay markaas inaad ka hormarisid. marka mar walbo waxaad sameyn doontaa wax loo yaqaano review ama taxliilin. reviewgaas waxaad u baahan doontaa waxaad taxliilinaysa inaad report ka qortid. reportkaaga waxaa loo baahan yahay in aad ku dartid decision-kaaga iyo waxyaabaha go-aamadaada la xiriiro eventyadii ama baaritaanadii aad sameynaysid. ogow waxyaabaha aad la kulmi doontid waxaa ka mid ah in aad gaartid go-aamo adag. xogta aad ku gaaraysid go-aamadaasna ay tahay limited data, yani xog yar oo kooban ayaa waxaa ku gaari doontaa go-aamaad adag. wax ugu badan oo wehel ku noqon doono waxay noqon doonaa wax loo yaqaano thinking ama critical thinking. therefore waxaa maanta u baahan tahay arrimaha soo socda. kow, sidee loo qoraa clear report la fahmi karo. lambar 2, waxa ugu badan oo aad u baahnaan doontid waxa waaye thinking ee ma ahan hacking. ma ogtahay xirfadaha ama techniqueska hackingka aan baranay in la isticmaalo ama isticmaalkooda inay noqon doonto inta ugu yar inta aad goobaha shaqada ku jirtid. xirfadaha hackingka aad ku aragtid magaciis muxuu ahaa movieska iyo youtubeska iyo meelaha, isticmaalkooda waxay noqon doonaan inta ugu yar. waxa ugu badan oo waqtigaaga aad ku bixin doontid wuxuu noqon doonaa review, investigation, taxliilin. waxa ugu badan aad isticmaali doontidna waa maskaxdaada. xirfadda ugu weyn aan maanta kuusoo jeedinaya inaad baratid waxa waaye report writing iyo critical thinking. haddaba go-aan waxaa lagu gaaraa maskax fiyow. waxaa u baahan tahay marka inaad baratid how to think. maanta waxaan kugula talinaa inaad raadisid scenaariyooyada ama challenge-yada lagu dhiso brainstorming-ka. baro xirfadda loo yaqaano critical thinking. sidaas daraadeed xirfadda ugu muhiimsan aad maanta baranaysid ma ahan hacking ee waa thinking.
qodobka labaad aan soo jeedinayo waxay tahay in aad baratid xirfadaha loo yaqaano soft skillska, gaar ahaan xirfadaha fudfudud oo dadka ay inta badan ka gudbaan sida communication skills, sida loola xiriiro ama loola hadlo ama wax lisaga dhaadhiciyo bulshada dhexdeeda. Tusaale ahaan, waxaad ka shaqeysaa cyber security, laakiin waxaad xiriir la yeelan doontaa other staffs, management, dhammaan qaarkood qayb ka mid ah waa non technical. waxaa u baahan tahay marka inaad baratid sidee looga dhaadhiciyaa riskiyada jiro dad aan ahayn technical, yani dad ah non technical, dad xirfad adiga aad taqaanid aan garanayn see uga dhaadhicin kartaa khatarta jirto. waa xirfad muhiim ah oo in la barto ay mudan tahay communication skills. sidoo kale waxaa isku daydaa inaad baratid xirfadda aamusnaanta iyo deganaanta, maxaa yeelay adiga waqtigaaga ugu badan waxaad ka shaqaysiin doontaa maskaxdaada. mar walbo aad aamusan tahay waa mar walba ay maskaxdaada ay curiso ama ay shaqeyso ayna soo saarto go'aamo miro dhal ah. maskaxdaada mashquulinin, kaftanka badan jooji, qosolka badan jooji, telefoonka hadalka badan jooji. intaa shaqada ku jirtid ha isbarin in aad mashquushid dhanka maskaxda. isbar inaad tahay qof degan, aamusnaan badan, maxaa yeelay nabi cali salaam wuxuu dhahay qofka mu'minka waxaa laga rabaa falyaqul khayran aw liyasmut, yani wax khayr ah sheeg ama haddii kale iska aamus. saas oo kale markaad aamuskaaga uu badan yahay maskaxdaada curinteeda waxay noqonaysaa mid aada u wanaagsan. marka isku day inaad isbartid qof aamusan oo degan oo maskaxdiisa ay xasilan tahay inaad noqotid. run ahaantii khibradaha goobaha shaqada wax badan ayay ku bari doonaan. ma ogtahay incidentiga ugu horeeyo markaad shaqo gashid, incidentigaaga ugu horeeyo aad la kulantid waxaad ka baran doontaa, ama waxyaabaha aad incidentigaas ugu horeeyo wax aad ka baranaysid waxay ka muhiimsan yihiin 10 laab oo aad koorso ku baratay. saas daraadeed khibradaha nolosha wax badan ka baro oo mar walba noqo qof khaladaadkiisa wax ka barto. marka aad goobaha shaqada gashid waxaa laga yaabaa khaladkaaga ugu horeeyo in lagu saamaxo, laakiin mostly inta badan second chance inaad heshid way adkaan doontaa. marka qof khaladaadkiisa soo noqnoqdo oo aan khaladkiisa wax ka baranin ha noqonin. isku day inaad khaladkaaga wax ka baratid. maxaa sameynaysaa marka? methodology sameyso. tusaale ahaan waxaa samaystaa wax loo yaqaan playbook, qaab aad u shaqeynaysid oo aad isku xakameynaysid oo aad isku kontrooleysid oo aad isku horumarinaysid oo aad ku dhaqmaysid sameyso. qaabkaas wuxuu kaa caawin doonaa in khaladaadkaaga aad kontrooshid. mar walbana waxaa u baahan tahay in aad samaysatid mentorship, qof kula taliyo oo ku hago oo mar walba ku siiyo talooyin wanaagsan. ugu dambeyn waxaan kusoo khatimaa waxaad yeelan doontaa wax loo yaqaano lifestyle. cyber security engineerska qaabkay u shaqeeyaan waxaa ka mid ah inta badan waxay u shaqeeyaan sida dadka loo yaqaano firefighters oo kale, ama waa dad 24 saac shaqadooda lagu tiirsan yahay. saas daraadeed inta badan waqti walbo ayaa lagu baahan karaa. marka waa inaad ku xisaabtantaa shaqooyinka cyber security-ga ama shaqooyinka mostly IT-ga ba aan dhaho waa shaqo dependent lagu yahay oo 24 saac ugu baahan karo. ma ugu sii jirto shaqooyinka cyber security-ga oo waxaa dhici karta in xilliyada weekendiga xitaa ay shaqo kuu soo baxdo. maalmaha jimcada aad shaqo kuu soo bixi karto, habeen aad shaqo kuu soo bixi karto. mar walbo waa inaad ahaataa qof diyaar ah. waxaad ku tiirsanaan doontaa sidoo kale coffee. waxaad ahaan doontaa qof mar walbo isticmaala coffee, maxaa yeelay shaqadu aad u badan iyo pressureka oo aad u badnaan doono waxaa u baahnaan doontaa support badan. marka isticmaalka coffeega wuxuu kuu noqon doonaa waxyaabaha caadiga ah. sidaas daraadeed cyber security courseska waxay kuu furi doonaan albaabaha, laakiin reality-ga ayaa wax walba ku bari doono. goobta shaqada waxay u baahan tahay halgan adag si aad u badbaado una guuleysato, sidoo kaleetana aad u guuleyso organizationka u shaqeynaysid. u diyaar garoow halgan adag. mahadsanid. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. fadlan asxaabta gaarsii. maalin wanaagsan, jimco wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.